runtii maxamedow dawladda waxyaalaha loo igno waxaa ka mid ah in dalkan la nabadeeyo si looga hirgeliyo doorasho hal cod iyo hal qof ah. taas wax ka horeysa waxay tahay oo madaxweyne maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo mudnaan koowaad uu siiyey amniga si wax laga qabto. shacabka Soomaaliyeed muxuu ahaa waxay naga dalbadeen annaga in dawladdu ay tallaabo walba qaado amniga lagu sugayo. taas iyadoo laga duulayo 8 Febraayo waxa isbedelay dhaqankii iyo dawladnimadii iyo shacabkiiba aad u taageeray madaxweynahooda iyo dawladooda. taas iyadoo laga duulayo 6 Abriil madaxweynuhu wuxuu iclaamiyay in dalku uu ku jiro xaalad dagaal. xaalad dagaal sababta loo geliyay wax kale ma aha dawladdu diyaar uma inay ku fiirsato kooxaha argagixisada inay yimaadaan shacabka dhexdiisa ay maalin walba qarxiyaan amni daradana ay sii fogeeyaan. tiiba marka waxa loo xil saaray guddi arrimahaas ka soo baaran taga waxa la sameeyay qorshaha xasilinta dalka waxaana laga sii bilaabay oo mudnaan gaar ah la siiyay qorshaha xasilinta caasimadda oo loo arkay meesha ay kooxaha argagixisadu aad u bartilmaameystaan. waa la socotay 12 May golaha wasiirada waxay soo saareen go'aamo ah in magaaladaas dhibta wax ku haya ay ka mid tahay hubkan faraha badan ee la wato. go'aamadii marka fulintoodii ayaa waxa ka mid ah in ciidan 1500 ah oo ka kooban booliiska, militariga iyo nabad sugidda la aruuriyay, xere la geeyay, tababar loo sameeyay, wacyigelin la siiyay, la baray xuquuqul insaanka si magaalada amnigeeda loo sugo. taas waa marka wax oo dawladdu u haysato mandate tii ayay ku dhaqaaqday ee fulinaysa. iyadoo fulitaankii bilaabatay hawshan si fiican u socoto dad muxuu ahaa ku waqtiyeystay fowdadii iyo dhibkii ayaa weli u arkay hubka markii laga aruuriyo inay dhib ayaga u imaanayso. laakiin waxa la rabaa dadka noocaas oo kale ah horta dhaqankii hore iyo fowdadii waa dhamaatay. cid laga yeelay inay fowdo iyo qoriyo badan iyo magaalada ku haysato lagu waardiyeeyo u dhaqan sidii atoore inay tahay taas waqtigeedu waa dhamaaday. qofkaas waxa laga rabaa inuu xaqiiqsado isbedelka dhacay, inuu xaqiiqsado shacab iyo dawlad isla socoto, amniga shacabka la sugayo oo badanna inuu ka qiimo badan yahay amnigiisa gaarka ah. marka taas waa mid muxuu ahaa cabashooyinkaas yimid mid sax maaha, waa mid dadka qaar baa qabiil u bedelay waxay leeyihiin beel gaar ah la farmeesay oo laga dhigayaa in muqdisho caasimada Soomaaliya ay tahay dadka ku badan Ilaahay ku badiyo dabcan qof dooqiisa ma ahayn. dadka qaar marka wuxuu bedelan qabiil oo qabiil ka dhigay maxay jawaabta siinaysaa? dhaqankii hore oo qabiilkii la orkacsanay waa dhamaaday. cid qabiil orkacsan karta ama qabiil ku sheegan karta dadka shacabka Soomaaliyeed waxay rabaan dawladnimo, dawlad oo hirgasha nabadii amniga iyo caasimadda la soo celiyo waxay dan u tahay shakhsi walba. muwaadin walbana waxa laga rabaa inuu kaalinta uu ka leeyahay oo ka qaato. cid alaal ciddii fowda iyo in dib loo socdo rabtana cid laga yeelay ma waxa la soconaa in dad badan ay hubabkoodii ay banaanka geeyeen ay ka bixiyeen magaaladii. dadkaas waxaan leenahay muqdisho markii la nabadeeyana banaanka waa la kugu imaana meel kasta hub ku xareysaan. shacabkiiba hadda noo soo sheega inta jeero guriga la tagay hub laga soo aruuriyayna maskaxdaada diidaya. arrimahaasna waa arrimo runtii dawladdu aysan marnaba dib uga laabanaynin. ujeedadana ay tahay caasimad amni ah oo nadiif ah. waxaa kordhaya dhaqaalihii, waxaa imaanaya in dawladdu ay adeegyadii aasaasiga ah waxbarashadii caafimaadkii bulshada gaarsiiso. waxaa imaanaya in arday badan ay iskuulaad tagaan. waxaa imaanaya in muxuu ahaa dhalinyaradii shaqo loo helo. marka arrimahaas oo dhan cid aan uga gabaneen oo maaragtay marmarsiyo looga yeelay ma jirto.